ninkii ugu caansanaa uguna awoodda badnaa maafiyada dalka Talyaaniga iyo guud ahaanba Yurubta galbeed ayaa haatan isu bedelay daaci weyn oo dadka ugu baaqa qaadashada diinta Islaamka. Vince Fogley oo lagu tilmaamay inuu ahaa shakhsiyaadkii sida weyn looga baqi jiray ee soo mara taariikhda kooxaha maafiyada tan iyo qarnigii 19aad oo ahaa xilligii ay sida weyn ugu soo shaabaxeen Yurubta galbeed iyo qaaradda Mareykankaba kooxaha maafiyada ee ku lug yeesha dambiyada abaabulan. ninkan ayaa ka badbaaday ugu yaraan 6 shirqool oo lagu khaarajinayay kuwaas oo ku jiro mid lagu dilay wiilkiisii kadib markii uu wiilkiisa ku waayay howlgallada khatarta ah ee uu ku lug leeyahay waxa uu bedelay qaab nololeedkiisii kadib markii uu dhigtay aayada quraanka kariimka ah oo uu sheegay inuu dareemay inay isaga si toos ah ula hadlayaan. waxa uu sheegay Vince Fogley inay si gaar ah u taabteen aayada quraanka kariimka kuwaas oo qeexaya in ummad kasta oo dunida ku kornooliba ay leedahay muddo go'an muddadaasi markay dhamaatana saacadna dib loo dhigahayn horena aan loo soo qadimahayn. waxa uu yidhi markaan arkay aayadda odhanaysa walikulli ummatin ajal faida jaa ajaluhum laa yastakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun waxaan ka istaagay wax kasta oo aan ku foognaa waxaanan go'aansaday inaan diinta islaamka qaato magacaygii Vince Fogleyna waxaan u bedelay Cabdisalaam. Vince Fogley waxa uu ahaa shakhsi si weyn looga baqo waxaa la sheegayaa in xataa ciidamada ammaanku ay ka cagajiidi jireen inay ku dhiiradaan inay wax ka qabtaan dambiyada uu ku lug leeyahay. kadib markii uu diinta islaamka qaatay magaciisiina uu bedelay Cabdisalaam waxa uu sameeyay hodheel cunto kaasoo ugu talagalay inay wax ka cunaan dadka danyarta ah iyo dadka jidadka ku nool. waxa iyaguna diinta islaamka qaatay dad badan oo isku koox ahaayeen iyo xataa xaaskiisii inkastoo markii hore ay ka biyo diiday go'aankii uu ku qaatay inuu diinta islaamka galo. waxay sheegtay in markii hore ninkeedu ahaa mid aad u dhib badan isla markaasna si joogto ah uu u diri jiray uuna isticmaali jiray khamriga iyo daroogooyinka kale balse markii uu diinta islaamka qaatay uu noqday mid jacayl iyo naxariis badan taasoo ku qancisay iyadana inay diinta islaamka soo gasho. Vince Fogley oo haatan loogu yeedho Cabdisalaam waxa uu sheegay in soo gelitaankiisa diinta islaamka ka dhigtay sidii uu mar labaad dib u dhashay waxaana uu intaas raaciyay in aan la qiyaasi karin farxadda xad-dhaafka ah ee uu dareemayo. Maxamed Xasan Daacad Saab TV. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil. haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.